xabsigani waxa uu ka mid yahay xabsiyada ugu cabsi badan dunida. Cidii gashana weligeed maysan ka bixin, sababtoo ah wax albaab ah ma lahan, mid laga galo iyo mid laga baxo toona. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Aadan. Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta daawadayaal. Intaana u guda gelin ka hor muuqaalkeena, hadday tahay markii koowaad oo aad na soo booqatay, fadlan falowda ha nagala baqeelin muuqaalkana like-ta saar siina gud. Waxaa jiro oo aan wada ogsoonahay dhammaanteen in dunideeni ay jiraan xabsiyo la yaab leh, laakiin midka aan kusoo qaadanayno muuqaalkeena maanta waa uu ka duwan yahay oo lamid ma ahan kuwii horey aan u maqalnay layaabkooda. xabsigan layaab kale ee qaara ayaa ah xabsiga keliya aan lahayn albaabo laga galo, waxaana galay xabsigan boqolaal qof, cid ka baxdana aysan jirin, taasoo dhacda waddanka Morocco. waxaana la sheegaa in aan la garanayn meel uu ku yaallo, ciddii gashana weligeed ka bixi mayso. waxaa xabsigan dhisay sultaankii la odhani jiray Mawla Ismaaciil ee ka talini jiray oo boqorka u ahaa waddanka Morocco xilligaas, si uu ugu xiro godkani dambiilayaasha iyo cid kastoo kasoo horjeeda isaga iyo xukuumaddiisa. waxaa kaloo la sheegaa inuu xabsigan u samaysan yahay qaab geometry ah oo aad u gunguntan, waxaana uu ka kooban yahay dhowr qaacadood ama howl kastana waxa uu leeyahay dhowr wado oo gudihiisa marta. mid kasta oo wadooyinkaasi ka mid ahna waxa ay ku geynaysaa ama ku gaarsiinaysaa howl kale ayay ku dhiibaysaa, si haddii xitaa aad wax yar meel ugu leexatid aad ka lumaysid oo aad garan waynaysid waddadii aad haysay iyo halkaad u jeeday, waxayna u muuqataa in aad wayso wadda aad oga baxdo. aad bayna u adag tahay in aad ka baxdid halkaas, waxayna u dhowdahay in aad ku laabatid waddadii aad ku timid, waayo wadooyinku waa kuwa isku laablaabta, qaacooyinka ama hoolalkuna waa kuwa isku eg oo isku furan, oo garan maysid meel aad kasoo gashay iyo meesha ku dhammaanay midka kale kalama garanaysid. inta uu la egyahay xabsigu lama yaqaano oo cid garanaysa ma jirto ilaa imikan. waxaa jira kuwa leh wuxuu la egyahay xabsigan magaalada Maknes, waxaa kaloo jira kuwa leh waa 10 kilomitir oo dhulka hoostiisa ah, lagana yaabo inuu yahay xabsiga keliya ee dunida aan albaaba lahayn. haddaba waa su'aale, siday bay maxaabiistu ku galeen xabsigan? waxaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhowr duleel oo saqafka korkiisa ah, halkaas ayaana looga soo tuuraa oo looga soo ridaa maxaabiistu. bal adiga qiyaas qof laga soo tuuray guri sanqaafkiisa kore wax gaari kara, weliba si arxan darro ah. isla dulalka laftigiis ayaa cunooyinka looga soo tuura oo looga soo ridaa maxaabiistu. jeelkani waxaa la geeya oo keliya dadka ku xukuman xabsi daa'imku oo loogu talagalay inay dib dambe dunida u arag. waxaa kaloo jira sheeko odhanaysa in Mawla Ismaaciil uu u sameeyey meel un laga baxo jeelka gudihiisa ama xabsiga gudihiisa, ciddii heshana ay xor tahay, laakiinse nasiib darro ma jirto cid ilaa imikan heshay albaabkaasi. waxaa jira kuwa la yaaban maxaa xabsigan loo baari waa si sirtiis oo dhan loo wada ogaado. sababtu waxay tahay in la waayey qof ku dhiirrada inuu isku dayo in uu galo godkani, waayo qof walba wuxuu ka baqayaa in uu waayo waddadii uu oga bixi lahaa godkani. waxaana jirta oo la aaminsan yahay in godkani uu degan yahay jin iyo cafaariid. waxaa kaloo jirta odhanaysa in xabsigani si un u habaaran yahay ama si un u lacnadan yahay, oo waa mid lacnad qaba oo habaaran. dad badan oo muqaamiriin ah ayaa isku dayay inay u sahmiyaan gunta hoose ee xabsiga si ay u ogaadaan halkani waxa ku jira. natiijadase waxay noqotay in qofkii galaba aanu soo noqon, dib dambena loo arag. iskudayga waxaa ka mid ahaa koox u dhalatay waddanka Faransiiska, agabkii lagama maarmaanka ahaa iyo qalab casri ah. natiijaduna waxa ay noqotay mid muruga leh, iyadoo la waayo kooxdii cirib iyo jaanna meel ay dhigeen la garani waayey, ilaa imikanna aan la aqoon masiirkooda meel uu ku dambe. dhacdada kadib jeelkani ama xabsigani waa la xiray, waxaana lagu wareejiyey darbi shamiito ah. waxaa laga soo rabay oo keliya hal howl ama hal qaacad, taasoo lagu talagalay dadka dalxiisayaasha ah. xabsiga qaara waa astaan taariikhi ah, waxaana la dhisay qarnigii 18aad ee miilaadiyada, xilligii Mawla Ismaaciil ee ku dhex yaalay xaafadda Qasba magaalada Maknes. waxaana loo sameeyey qaab 4 geesood ah, waxaana loo kala qaybiyey 3 howl oo waasac ah, mid walbana waxa uu leeyahay koox qaanso ah iyo taageerooyin waaweyn. xabsiga qaara waa xabsiga ugu weyn waddanka Morocco. muuqaalkana maanta intaas ayuu ku egyahay daawadayaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.